السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن ونكسن أخيار ميل والبوء جوكتان dumarka way ku kala aragti duwan yihiin gabadha kale way ka aragti duwan tahay qofka ay dooran lahayd qofka ay nolosha la wadaagi lahayd gabadha waxa macquul ah inay tiraado qof qurux badan aniga inaan nolosha la qaybsada muhiima mid kale taa waxa macquul ah inay muhiimada siisaa qof dabeecad fiican lahaa aniga nolosha inaan la qaybsada muhiim ay tahay ay leedahay sidoo kale tu kala waxa macquul ah nin oo lacag leh inaan nolosha la qaybsada muhiim ay tahay ay fiican tahay inay tiraado way ku kala aragti duwan yihiin doorashada ama xulashada la doorto qofka ragga laakiin inta ugu badan waxa la sheegaa ama ay qoraayaasha inta ugu badan waxay xulaan inay ka wada siman yihiin dumarka oo idil naceebka ama marka ay qeexayaan qofka ay neceb yihiin dumarka way ka wada siman yihiin intooda ugu badan ayay yiraahdaan marka hadduu ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaan ku soo bandhigo shan ragga kamid ah inta ugu badan dumarka aysan ka helin fadlan haddaad ku cusubtahay channel-ka ha ilaahay subscribe-na inaad noo saartid mahadsan qofka koowaad wuxuu yahay qof gacan adag inta ugu badan gabadha markay la haasaaweedo qofka lamaanaheeda ama nolosha ay ku fikirtay inay la qaybsato ama qofka ay fursad siisay inay hadal ka dhigaysato hadduu gacan adag yahay marmarka qaar ay dan ay leedahay ama waxyaabo baahi ay soo muuqato wax ay ka codsato wax ay ku tabaysay ay jiraan haddana oo maxaa la yiraahdaa aanan siinin ama aanan u gacan furnaanin inta ugu badan dumarka kama helaan ragga noocaas ah ragga gacanta adag waxba aanan bixinin markay wax weydiisato waxba siinin wax ma haayida ay muhiimada koowaad ay soo siiyaan wax ma haayida ay ka soo horeyso inta ugu badan fursad ma siiyaan ay ku sii dhigeystaan waxay ku khasbantahay gabadhaas marka in ay qof kaleeto baahiyeeda buuxin kara inay hesho inay raadido marka ha ku fikirin haddaad gacan adag tahay oo wax haysatid laakiin aad gacan adag tahay dumarka waxba yaa la siinin ay ka dhaadhacsan tahay gabadhan way iga cararaysaa aysan ka dhaadhici naftiyo gabadhaas inay ka cararto adiga sabab u ah waxyaabo waxa jirto qofka bini'aadamka waa la wada nool yahay qofka kaleeta waa ka duruuf adag yahay ama qof kaleeta duruuftiisa inuu daboolo ilaahay waxyaabuhu dadku abuuray kamid tahay qofka labaad wuxuu yahay qofka aan ixtiraamin gabadha oo ixtiraam aanan u haynin reerkeeda ixtiraam aanan u haynin waalidiinteeda ahalkeeda qaraabadeeda aanan ixtiraam u haynin inta ugu badan dumarka ma jeclo wayna ka wada siman yihiin labadaas midda koowaad aan soo sheegnay midda labaad hadda aan taaganahay way ka wada siman yihiin qofkaas inaysan wax jecel aysan u qaadin ama serious aysan u wada hadlin maxaa la yiraahdaa sida axlaam mustaqnama ee sheegta amal caabir sabiil oo agteeda uu ka noqdo hadii ixtiraam weeydi gabadha looma fadhiyo adina sida curfiga lagu yaqaanay curfiga bini'aadamka lagu yaqaano weeyaan inay ku ixtiraam weeyso inuu qofku ixtiraam waayo marka aad ixtiraam weeydi marka qofka labaad ay dumarka inta ugu badan aysan ka helin ama ay necib yihiin oo qofka aan ixtiraamin shakhsiyadeeda ama ahalkeeda aan ixtiraamin waxa loo baahan yahay ahalkeeda inay ixtiraamtid sida u jeceshahay ahalkaaga inay u ixtiraam waxa loo baahan yahay hadii fog yihiin inaa xariirisid oo wacdid oo ka warhaysid hadii ku dhow yihiin aad u tagtid oo salaantid marka haasawaha la taagan yahay weeyaan ta saddexaad waxay tahay qofka khayrul mas'uulka inta ugu badan dumarka ma jeclo qofka khayrul mas'uulka gabadha aan wareysanin halkay ka timaaday sidoo kale aan ka warhaynin halkay u socoto hadii ay jecel yihiin xataa inaan la controlin oo la xadidin laakiin waxay jecel yihiin qofka mas'uulka ka ah guriga oo inta ugu badan ka warhayo halkii aado ama maxaa la yiraahdaa mas'uuliyadda ma aha guriga biilkiisa oo kaliya ninka ragga inuu mas'uul ka noqdo sidoo kale waxa muhiim ah inuu mas'uul ka noqdo amnigeeda nolosheeda waxaanu idil inuu mas'uul ka noqdo caafimaadkeeda مسؤول إنه كان نقضى هل كي هذه الهاد مال في عن مية إنه قفك كورهايا حتى مسؤولية دي كمتاعي تن أفراد وحيتهاي نم مسير بدن أنت قب بدن دمرك مجعله نك رجعه ومسير كبدن وجواد اللي يجري هذا مرة والبو حاجة كتمادي حاجة وسعتها كم محوقها كاس محوقها كاسي سعد محوقها أنت بدن ويدية هنا سب بدن ومركو شغلكم مقية هنا هل كشيء وكيف كره أي تهاي محيكو سجنت أي جبدان وأن كأهين عافمات كيسوي أنا كأهين inta ugu badan dumarka ma jeclo qofka saa u kontrolo oo masiirkiisa heerkaas u gaaro laakiin qofka mas'uuliyadiisa qaato oo qofka mas'uuliyadiisa ka soo baxo ragnimadiisa u muujiyo waxyaabaha asaasiga u ah gabdhaha ay ku xushaan tan shanaada waxay tahay qofka wax walba oo loo sheegay iska aamin markuu banaanku maqan yahay saanay wax u jiraan reerkaaga saan waa inta la yiraahdo iska soo qaato aamino guriga iska soo aado aad bay u nacib yihiin dumarka shanta qof aad bay u neceb yihiin fursad haasawana inay la yeeshaan
hadday ku arkaan calaamadahan ay ka cararayaan. inta ugu badan shantan marka la haasaa way dumarka kama helaan bayna ka wada siman yihiin hadday ku kala aragti duunaadaan qofka ay xulan lahaayeen kuma kala aragti duuna qofka ay naci lahaayeen. xataa markii la isguursado muhiimad fiican ayay u leedahay oo ninka ragga loo baahan yahay inuu iska saxo mas'uul uu ka noqdo gurigiisa reerkiisa uu mas'uul ka noqdo uu kontroole hinaasihiisa sidoo kaleeto shakigan uu iska ilaaliyo. inta ugu badan guriga waxyaabaha burburiya guriyaasha waxyaabaha burburiya waxa uu horeeyo tiirka ugu weyn ku soo burburaa waxa weeyaan shakiga. qof markuu shaki ku dhasho markaas burburka kaleeta isku soo xigxiga. guriyaashan burburay inta ugu badan marka wareysatid lagu kala tagay la isfuray waxyaabaha inta ugu badan ay ku kala tageen marka la ogaado ama marka banaanka loo soo baxo waxyaabaha xaqiiqo ma noqdaan. waxa macquul ah inta ugu badan inaan maqalno gabadhaas hinaasay gurigeeda ugu soo tagtay masiiray ugu soo tagtay naakala marka wareysatid naakala uu shukaansanayay uu guursan rabaa darteeda guriga ugu soo tagtay inkastoo ilaahay afar uu baneeyay haddana markay kala tagaan kadib 5 sano 6 sano 10 sano ninkii aan guursanin baa la arkayaa. markii la kala tagay ninka waxa macquul ah wallahi iga tahay inuu leeyahay waxaan shukaansanaya ma jiraan saaxiibadeyda ku soo la soo madadaalay meelahaas aan ku mashquulsanaa qof dan naga wada dhaxaysay gabadha haddana inuu dhahayaa macquul ah. laakiin markii kala tagaan kadib haddii xaqiiqo tahay gurigaas waxyaabuhu u burburay guur kaleeto uu qof kaleeto uu la damco uu yahay muxuu u guursan waay maalinka adigu ku furay maalinka kala tagteen muxuu u guursan waay taas xaqiiqo ah. in sabarka wax wanaagsan ah guriga sabar lagu dhisaa shakigana waa dumiya iska ilaali shakiga. wassalaamu calaykum waraxmatullahi